nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh mucaad ibnu jabal ayuu arrimo fara badan u sheegay tawxiidkuu u sheegay salaaduu u sheegay jihaadkuu u sheegay arrimo fara badan oo muhim markuu u soo sheegay yuu ku yidhi alaa ukhbiruka bimilaaki daalika kullihi mucaadow ma kuu sheegaa waxaasoo dhan wax isku fuuqfuuqsadoo wada milkinaya waxaasoo dhan wax ka khatarsan ma kuu sheegaa haa buu rasuul ilaahayow markaasuu nebigu intuu carabkiisa qabtay buu wuxuu yidhi kan iska qabo kufa calayka haadaa kan iska qabo buu yidhi naftaada kan ka celi iska xakamee markaasuu wuxuu yidhi oo rasuul ilaahayow waxa aannu ku hadlayno miyaa naloo qaban doonaa waa cajiibe waxaanuun hadalkan aan iska wadnay daldalaynoon miyaa laysaga daba imaan doonaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam hakiiladka ummuka yaa mucaad mucaadow hooyadaa kuweyde hooyadaa gablantaye dadka naarta ma waxaa ku rida wuxuu carabkoodu shaqaystay waxaan ahayn dadka ama naarta gadaalgadaal ha loogu tuuro ama madaxa loogu tuuree ruux naar galay carabkiisa unbaa geliyey saas daraaddeed carabka iska qaba buu nebigu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh carabka iska xakamee lisaankaaga iyo carabkaaga xifdi mucaadow dadka naarta waxa geliya waa un carabkee carabku waa xubinka ugu fudud ee si fudud kuu gelin kara ilbidhiqsi wax adduunkaagiiyo aakhiradaadaba baabi'inaya markaad doonayso inaad gacanta wax ka qabato waxay u baahan tahay shaqo wey ma fududa inaad shay ku tillaabsato oo lugahaaga ay tillaabo u qaadaanna ma fududa laakiin labada shay ee ugu fudud waa carabka iyo indhaha waay ishuna si fudud bay waxa ugu dhacdaa carabkuna si fudud buu kelimada u yidhaahdaa waa halka xubin ee adigoon dareemin ku gelin kara ama ilaahay naxariistiisa iyo ridihiisa iyo janno daa'im ah ama ilaahay cadhadiisa iyo cadaabkiisa iyo cuquubo daa'im ah xubinkaasi marka waa xubin khatar ah saas daraaddeed baa halistiisa waxaad ku garan nebigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina arajula layatakallamu bilkalimati min ridwaan illaah maa yadunnu an tabluqa maa balaqat fayaktubu allaahu lahu biha ridwaanahu ilaa yowmi alqiyaama ruuxu hal kelimuu ku hadli kelimadaa umuuna fiirsanin meesha ay gaadhay inay gaadhaysana lama ahayn si fudud bay afkiisa uga soo baxday kelimadaasi baa ilaahay wuxuu ugu qorayaa ridihiisa ilaa qiyaamada kelimo wanaagsan oo uusan ka fiirsanin oo uun si fudud carabkiisa uga soo baxday buu rido ilaahay ku gaadhaya wa ina arajula layatakallamu bilkalimati min sakhati illaah maa yadunnu an tabluqa maa balaqat fayaktubu allahu calayhi biha sakhatahu ilaa yowmi alqiyaama hal kelimo oo ilaahay cadhadiisaoo dembi ah ayaa si fudud carabkiisa uga soo baxaysa kelimadaasi lama ahayn halkaasay gaadhaysaa mana uusan ka fiirsanin kelimadaa keligeeda sababteed ayaa ilaahay agtiisa waxaa loogu qorayaa cadhada alle ilaa qiyaamu saaca ilaa qiyaamadu ka imaanayso addoon ilaahay u cadhooday buu noqonayaa maxaa keenay hal kelimo hal eray hal weedh ah oo aan si culus kaftan buu u yidhi si fudud bay uga soo baxday lamaysan ahayn kelimadani dhib weyn baa ka imaanaya muusan islahayn kelimadii iyadaha waxay keentay adduunkiisa iyo aakhiradiisaba inuu khasaaro maadaama ay sidaas tahay inaynu aad uga fiirsannay u baahantay inaynu aad u fiirsanno oo carabkaynu xakamayno oo aan is-ilaalinay u baahantay waxyaalaha ugu badanayn marka iska ilaalinayno maxay yahay waxa ugu badan iska ilaalinayno waxaa ka mid ah oon iska jirayno xanta dadka muslimiinta ah wax ka sheegga dadka muslimiinta ah oo waayahan dambe noqotay arrin iska furan nolosheennaba qayb ka miday noqotay haddii majlis iyo meel laysugu yimaado ama guri laysugu tago ama gole laysugu yimaado ama meel uun dadka kulmiso
ama jid la isaga hor yimaado wax yar la wada istaago waxa laga sheekaysanayo waa dad muslimiina iyo cirdigooda iyo sharafkooda khaasatan dumarka waxa u badan ee naarta geeya waa carabkooda nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii uu yidhi dumarka waxaan arkay iyagoo naarta u batay naartaan daalacday saa dadkii galay dumar baa u badnaa buu yidhi gabadh baa soo istaagto waxay tidhi oo rasuul ilaahayow sababta aan naarta ugu badannay maxay tahay nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh takfurna allacna wa takfurna alcashiir labadaa qodob baa naarta idiin badisay lacnadaad badisaan aflagaadadaad badisaan caydaad badisaan wax ka sheegaad badisaan carabkiinnu ma kontarolla qodobka labaadna zawjkiinna iyo cashiirkiinna idinla nool ee noloshu idinkala dhaxayso ayaad ku kufridaanoo ku abaaldarrootaan oo wanaaggiisa iyo ixsaankiisa ma qirtaan labada qodob ee naarta idiin badisay waa carabka iyo jasaarnimada iyo ixsaanka oydan qirin dadka u badan ee mararka carabka naarta ku geli doona raggu waxaa laga yaabaa inuu gacanta iyo dilka iyo dhaca iyo wax khiribidda iyo wax burburinta iyo inay naarta in badan ku galaan laakiin dumarku gacantoodii iyo lugtoodii iyo waxay qaban lahaayeenba carabkaasaa u badan waxaa loo baahanyaa marka in la iska ilaaliyo xanta la iska ilaaliyo dadka muslimiinta ha xamanin waxa ka sheegin haddaad xamato soomaa ood ceebahooda sheegto ood majaalista ku sheekaysataan ood ku xalladaysataan waxaad ogaanaysaan dadkan ilaahay bay leeyihin ruuxu mar hadduu muslim yahay allana ka baqo waa weli ilaah aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun dadka ilaahayna rumaysan ka cabsadoo dariiqiisa hayaaye waa awliyada ilaahay haddii lagaa kari waayana oo afkaaga iyo addinkaagu ka nabadgeli waayana ilaahay baa kula dagaalamaya sa allah tabaaraka wa tacaala sooma dhihin man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb weli awliyadayda ka mida ruuxii la collaytama oo colaad u qaada oo dhiba dagaal baan u cilaamiyey ha ku talagalo dagaalkayga dagaalka lagula gelaya waxaa ka midoo rabbigaa kula geli doono alimaamu axmed iyo abu daawuud waxay soo saareen xadiid abu barzat alaslami laga warinayo arbacaduna baraa ibnu caazib bay ka warinayaan wuxuu yidhi nebigu sal lla alay wasalam yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iliimaanu qalbahu war dadka aan carabka uun ilaahay ka rumeeyeyow qalbigoodana uusan iimaanku gelinow dad afka keliyeeta uun ilaahay ka rumaysan oo carabkay ka ashahaadanayaan laakiin qalbigooda iimaanku uma degin dadkaasow laa takhtaabu lmuslimiina muslimiinta ha xamanina muslimiinta xanta ka daaya walaa tattabicuu cawraatihim cawradoodana ha dabagelinaya ceebahooda dadka muslimiinta ceebahooda ha dabagelina ha raarraadinina fainahu man tatabbaca cawrata akhiihi lmuslim tatabbaca allahu cawratah walaalkiisa muslimkaa ruuxii ceebtiisa dabagaloo raacraaca oo raadiya ilaahay baa isagana ceebtiisa dabagaloo raarraadiya oo macnaha waxa way raacraaca waman tatabbaca allahu cawratahu yufadixu walow fii jawfi beyti ruuxii ilaahay uu cawradiisa dabagaliya ceebtiisana alla wuu fadeexayn xataa gurigiisa dhexdiisaba ha noqotee waa fadeexayn doonaa allah tabaaraka wa tacaala haddii lagu kari waayo marka oo xanta iyo ceebaynta iyo wax ka sheegga iyo dadka ceebahooda iyo dhaliishoodood raaraacdood dabagashood uruuriso guryaha tag soo uruuri dumarka la kulan ceebaha soo uruuri wareegayso
adiga shaqadaada ka dhigo inaad dadka xumaantooda soo ururiso kuna sheekayso waxaad ogaataa adigana ceebtaada ilaahay baa dabagelaya allah markuu ceebtaada dabagalana wuu ku fadeexayn doonaa xataa gurigaaga dhexdiisana ha noqotee ma ruux ilaahay uu dabagalay baa fakanaya ma fakanaysid aakhare intaan la gaadhin baad adduunka lagugu fadeexayn doonaa maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku asturi markaad dadka asturto laakiin markaad ka shaqayso inaad dadka ceebahooda bannaanka u soo saarto adigana ilaahay baa ceebtaada bannaanka u soo saari mana fakan kartid xataa gurigaaga gudihiisaa lagugu fadeexayn doonaa gurigaaga gudihiisaa lagugu fadeexayn doonaa maalin dhoweyd wadaad baa jiray sheekhnimo sheeganayay oo masaajidda mid ka mida magaalada Nairobi wax ka akhrin jiray nin sheekhnimo sheeganayuu ah ninkii waxaa lagu imtixaanay inuu culimada caayo culimadii hore rag qiimo badan leh oo diintan u soo adeegay inuu caayo ibn taymiya ibn al-qayyim sheekh maxamed ibn abdul wahhab mar alla markuu istaagaba ama khudbo ama muhaadaro ama kelimo markuu jeedinayo inuu ragga caayo waa ilaahay wuxuu qadaray tabaaraka wa tacaala dadkiisa markii laga kari waayo isaga kugu maqan baa lagugu maqan alla wuxuu qadaray ninkii nooca ahaa guri uu joogay oo qaraabo ay ahaayeen uu ka cuntayn jiray gabadh yar oo joogtay gabadh yar oo guriga joogtay oo aan qaan gaadhin ayaa isagoo oo farax xumaynaya lagu qabtay waa ninkii sheekh ahaa xaal baa loo dhigtay masaajidda hortiisa lagu garaacay reerkiisii baa xaal loo dhigtay ninkii dhul baa qaban waayey oo cir baa asturi waayey ilaa uu cararay oo waddankiiyo magaaladaba uu ka cararay adiga markaa dadkan ilaahay tabaaraka wa tacaala shaqo ka dhigato oo lagaa kari waayo waxaad ogaataa waa lagugu maqan yahay ilaahay goortuu ku fadeexayn doonana ma foga gurigaaga gudihiisana lagugu soo gali doonaa xataa gurigaaga jawfkiisa lagugu fadeexaynaya ilaahay dadkiisa u daa oo adoomada ilaahay faraha ka qaad warkan aad leedahay waa fool xun yahay ilaahay baa saa u abuuray kan naafada ilaahay baa saa u galay kan dabeecadda xun Allah siiyey tabaaraka wa tacaala adiga haddaad wax la dhaantood wax kaga roontahayna adigu ismaadan siinina Allah ku siiyey allihii qaybta ku siiyey intaad ku shukrido dadkan ceebtooda iyo xumaantooda haddaba gelin hana caayin hana dhaleecaynin hana xamanin meel lagu xamanaya haddaad aragtana walaalkaaga muslimka cirdigiisa iyo sharafkiisa waa inaad difaacdo waxa aad u badan markaan majaalista isugu nimaadna khaasatan dumarka majaalista markii la isugu yimaadiyo goobaha iyo guryaha lagu sheekaysanayo mid baa xamanayso xan qolay xamanaysa guri bay xamanaysaa intii kale meesha fadhidayna way u qoslayaan oo way u marxabaynayaan والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ذاتك مؤمنين الله وحو كل شيء ما حاضران زورك يا بنت يا دنبك ما حاضران هذي اللغو يا وحيالها أن معناها لهين صوم مرانا أيقون كوة سقوبين ونوناكسن والنظيف أي مران ودافان حديث لكن وحي أضو مرحبيس أضو وحي أعمرتو أضو شعتريسو ood u qosasho xanta midda wadaya adigu isku dambi baati innakum idan mithluhum iyagoo kala tiimbu Allah tabaaraka wa taala kuwan ilaahay aayaadkiisa wax ka sheegaya xumaanta sameynaya la fadhidaan ee aydan ka kacaynin kana celinaynin idinkiya iyaguba isku dambi baati ruuxa dambiga wada ee xanta wada ee dadka wax ka sheegaya hadaanan qabanin oodan qaban kareenin isaga kac haddii kale tana qabo waxa tirada war dadka xanta ka daa na dadka xanta ka daayo dadka waxa ka sheegin aduguba ceeb baad leedahay ceebtaada Allah ku tuso
haddaad qaban karta qabo haddaadan qaban karinina waxaa la doonayaa inaad isaga kacdaa la doonaya waxaa la rabaa marka cuquubadaasi ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa ku dhacaysa allana tabaaraka wa tacaala walaalayaal sida uu mas'alada meeshuu gaadhsiiyey iyo xanta siduu u fool xumeeyey u fiirsada wuxuu rabbi ka dhigay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi walaa yaqtab bacdukum bacdaa ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi maytan fakarihitumuuh qaarkiin qaarka kale yuusan xamanin ha isxamanina ma jeceshihiin midkiin ma jecel yahay walaalkii oo mayd ah hilibkiisa inuu cuno walaalka oo mayd ah oo dhintay inaad hilibkiisa intaad googoosato aad cunto ma jeceshahay midkiin jecel ma ku jiraa fakarihitumuuhu waad kahateen waad dhibsateen shaki male mar haddaad kahatay walaalka oo mayda hilibkiisa inaad cunto xantu waa hilibkiisiyood cunaysa waa isagoo mayda hilibkiisa inaad googoosato iyo inaad xamataay waa isku mida hilibka walaalka ha cunin waxaa laga yaabaa waxyaalo badanoo innaga aad inoogu fududa hadda inaan aad baa muxuu aha dhib weyn nala ahayn ayaa ilaahay agtii tabaaraka wa tacaala aad u culus caaisha radi allahu tacaala canha wa ardaaha ayaa waxaa dhacday nebiga waxay ku tidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh xasbuka min safiyata kada wa kada safiya waxaa kaaga filan bay tidhi inay sidaa iyo sidaa tahay safiya waa xaaskiisii kale way safiya bintu xuyay waxay tidhi safiya nebi alla waxaa kaaga filan inay sidaa iyo sidaa tahay waa sidee iyo sidee riwaayaadka qaar baa tilmaamayo waxay leeyihiin waxay tidhi waa inay gaaban tahay waa haweenay gaaban bay tidhi oo idinka hadda ma idinla tahay hebla way gaaban tahay xan inay tahay hebla way gaaban tahay xanba uma haysannaba markaasaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh laqad qulti kalimatan low musijat bimaa'i albaxri lamasajathu caaishay waxaad ku hadashay kelimad haddii badda lagu badhxi lahaa badda oo dhan doorin lahayd oo badhxi lahayd hebla way gaaban tahay badda way wasakhayn lahayd biyahaad aragteenee badaha fadhiya heblaa gaaban ayaa wasakhayn lahaydoo bedeli lahaaba biyaha dhanba hebla way gaaban tahay hadday culayskaa leedahay bal wixii ka sii daran ka war way fool xun tahay ka war waa basari haddaad tidhahda ka war gurigeedu waa hallaysan yahay haddaad tidhahda ka war haddaad intaa kaba gudubtood cirdigeedii iyo aad tidhaahdo waa haweenay dhaqan xun ma dhaqan fiicna haddaad kaba sii gudubtood qadafto ood tidhaahdo muxuu ahaaye way gogol dhaaftaa walciyaadu billaah ood sii gudubto ka warran waa khatar waa meel ciddii ka yacni wax ka raadisa inay ku fashilmiyay ku baabi'i shaki uusan jirin waxaa jira xadiid kale oo xasan ah oo nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo socoto safar ah ayaa waxaa la socday abubakr sidiiq iyo cumar baa la socday ciidankii nebiga la socday bay ka mid ahaayeen abubakar iyo cumar marka waxaa la socda nin labadooda u adeegaya nin u adeegahaya oo shaqooyinka yaryarkaa oo raashinka diyaarintiisa shaqaale ahaan nin ula socday ayaa jira socodkii la socday baa meel la degay markii meeshii la degay ayaa ninkii waxoogaa wuu daallanaayo wuu iska yara seexday hurduu galay iska yara culus abubakar iyo cumar waxay yidhahdeen war ninkii hebel ahaa wuxuu seexday hurdadii guryaha la seexan jiray laan ruuxu markuu socoto yahay hurdaduu seexdo iyo hurdada guryaha la seexday way kala duwanta war guryaha hurdadoodii buu galay bay dhaheen waa kelimo hurdo weynaa hebel hurdo culus buu seexday waxaad mooddaa inuu gurigiisii jiifo
wax adag ma aha innaga marka laynoo fiiriyo maanta wax sii weynba ma aha abubakar iyo cumar intaa markay sameeyeen oo hadalkaas dhaafsadeen oo intaa ku sheekaysteen ayay waxay ninkii uu soo kaca way dirsadeen waxay yidhaahdeen nebiga u tago waxaad nooga raadisaa iidaan waxaan raashinka ku iidaamanno abubakar iyo cumar baa soo diray iidaan bayna ku weydiisanayaan nebi allow ee iidaan noo soo dhiib ninkii waa tegey nebigu u tegey salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi rasuul ilaahayow abubakar iyo cumar baa isoo diray waxayna kaa codsanayaan iidaan inaad u soo dhiibto nebigu farriin buu ku soo celiyey wuxuu yidhi ku noqo waxaad tidhaahdaa waad iidaamateen waad iidaamateen maxay tahay iidaanka kalead u baahantihiin ninkii waa soo noqday abubakar iyo cumar buu u yimid wuxuu ku yidhi nebigii wuxuu idin yidhi waad iidaamateen oo iidaankii waabad hesheenba maxay tahay iidaankaad raadinaysaan way yaabeen marka way soo tageen nebigay u yimaadeen sal alla alay wasalam markaasayna rasuul ilaahayow nin baan kuu soo dirsannay iidaan baan kaa codsannay farriin baad nagu soo celisay waad iidaamateen ee maxaan iidaamannay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam walaalkiin hilibkiisii baad ku iidaamateen buuhi waa kee waa ninkii ay ku yidhaahdeen hurdo weyn buu galay walaalkiin hilibkiisii baad ku iidaamateen maxayda iidaanka kaledii weydiinaysaan waa isku naxeen markaasa waxay rasuul ilaahayow ilaahay dembi dhaaf noo weydii rasuul allow ilaahay dembi dhaaf noo weydii markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam anigu dembi dhaaf idiin weydiin maaye isagii intaad u tagtaan ilaahay dembi dhaaf noo weydii ku dhaha isagaad khalad ka gasheen u fiirsada marka ruuxani waa hurdo weyn yahay hilibkiisii baad cuntay oo hilibkiisii baad ku iidaamatay wixii intaa ka sii daranna kawa sii daran waxaan u baahannaha walaalayaal inaynu is-ilaalinno oo carabkeenna ilaalinno oo dadka muslimiinta walaalaheenna nabadgelinno oo waxa aad dadka ku sheegaysaa ay kaa mashquuliso ceebtaadu kaa mashquuliso waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka axmed iyo abu daawuud ay soo saareen min xadiidi anas nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii kor loo sii qaaday habeenkii kor loo sii qaaday wuxuu yidhi waxaan sii maray dad marartu biqowmin lahum adfaarun min nuxaas waxaan sii maray buu idhi dad ciddiyo leh ciddiyahooduna waxay ka samaysan yihiin nuxaas birta nuxaasta ah yaqmishuuna wujuuhahum wa suduurahum ciddiyaha dheerdheer ee biraha nuxaasta ka samaysan waxay ku xaganayaan wejiyadooda iyo laabahooda wejigiina way diirayaan laabtiina way xaganayaan oo waa diiranayaan iyagaa iscunaya markaasaa waxaan idhi buuhi waxaan jibriil ku yidhi jibriil baa la socda nebiga sal lla alay slam man haaulaa'i yaa jibriilow kuwani maxay ahaayeen dadkan ciddiyaha biraha ale ee wejigoodii iyo jidhkoodiiba macnaa xaganahaya iscunahaya maxay ahaayeen markaasaa wuxuu yidhi jibriil haaulaa'i aladiina ya'kuluuna luxuuma annaas wayaqacuuna fii acraadihim kuwani waa dadka hilibkooda kuwii cuni jiray sharafka dadkana ku dhici jiray oo wax ka sheegi jiray kuwii weeye oo sidan u ciqaaban saas way macnaha yacni waxa weeyaan maadaama dadkii aad ceebayn jirtay oo wax ka sheegi jirtay waxaa lagugu ceebaynayaa adiga laftaadii inaad iscunto ood isxagato ood isbaabbi'iso ood haraggaagii faydo ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala kugu ibtilaynaya kugu imtixaanaya sidaasay u ciqaaban yihiin waxaa loo baahan yahay marka walaalayaal in aynu carabkeenna ilaalinno oo xanta dadka muslimiinta ka ilaalinno aad buu u diidi jiray nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ugana dagaalami jiray qodobkaasi xanta markaan ka nimaanno waxaa soo raaca oo qodobka xiga uu yahay ood carabkaaga iyo afkaaga iyo adinkaagaba ka ilaalin inaad muslimiinta isku dirto waxaa la yidhaahdo annamiima oo qodobka labaad ah namiimada nebigaa qeexay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo wuxuu yidhi atadruuna malcadhu ma taqaanaan namiimadu waxay tahay ma taqaanaan
وحي نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم وحل إلى ذا حنته إن هذا ورك ضدك أكل قادو سئات لحدو ذا أفسادسو هبلاد ورك قاضي هبلاد أجيس لحدو دي با فسادسو واسكو درت واستعلايين واسنعين ضد اسكو كالصون باي هايين وكالصوني دي با دشي ها maxaa keenay warkii aad u kala qaaday baa keenay waa namiimo warkan aad kala qaadayso dadkana fasaadinaya ummadii isku diraya kala geynaya qulubtooda isku garaacaya waa namiimada waa namiimadaasina iyaduna waa qodob aad halis u ah waxyaalaha carabku kasbadayna kamid waxyaalaha carabku kasbado ayay kamid waxa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hadith imam ahmad uu soo saaray min hadith abdurrahman ibn ghanmin tabarani uu soo saaray min hadith ibadah ibn samit wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam khiyaru ummati alladhina idha ru'u dhukira allah ummadayda akhyaarteedu waxa weey kuwa markii la arko ilaahay la xusuusto dad waxa jira markay ishaadu qabato khushuucdiis iyo muuqaalkiisu ilaahay ku xusuusinayo ilaahay ku xusuusinayo ummadayda kuwaasa akhyaartooda abu nabi sallallahu alayhi wasallam wa shiraru ummati ummadayda kuwooda shark yaani kuwooda shar kale kuwa shar kale xunxunka ee ummadda ka tirsani almashaa'una binnamiima waa kuwa u socoshada badan isku dirdirka dadka waxay ka shaqeeyaan dadka inay isku diraan dumar waxaa jira aan shaqo kala balahayn guriga ma fadhiistaan caruur ma koriyaan ganacsi kama shaqaystaan shaqadoodu waxa waagu markuu bariyo ayay guryaha ku wareegtaa suuxdii bay soo kalahdaa hebla ka wardoon way soo salaantaa way la soo shaahdaa way la soo qaxwaysaa war bay ka soo qaadaa way ka tagtaayo tu kale haddana la qaxwaysaa warkii bay geysaa tu kale haddana la soo shahdaayo ka soo qaadaayo mid kale u geysaa maalinkii waxa laga yaabaa intaasoo guri intay isu marto mid walba intay sir ka soo qaada inay ka kale u gudbiso almashaa'una binnamiima isku dirdiridii warka la kala qaado kuwa u socoshada badan almufarriquuna bayna alahibba dadka isjecelna kala geeya dadka isjecel isku kalsoon kala geeyo oo isku dira albaaquuna alburaa'a alcayb dadka aan ceebta lahayn ee fayow ee akhyaarta ana ceebta u raadiya ceeb bay u raadiyaan ruuxi waa ruux nadiif waa ruux magac leh waa ruux ilaahay ka baqaya waa ruux muxuu ahay daahir awey ruuxiina waxa loo raadinayaa ceebo uusan lahayn in lagu kabkabo in la saaro dadkaasa ummadayda ugu shar badan buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi namiima iyo xumaanta uu ka shaqeeya dadka isjecel isku diro warka u kala gudbiya dadka aan ceebta lahayn ceebta u raadiya dadkaasa ummadayda ugu xun buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiidkaas isagoo min xadiid ibn umarna sidoo kaleeto waxa soo saaray al-imam al-bayhaqi fi shu'ab al-iman wa hadith hasan awi wa hadith hasan xadiidkaasi marka wuxuu tilmaamaya dadka ka shaqeeya namiimada iyo isku dirdirka inay yihiin dadka ugu liitay ugu shar badan ummadda ilaahay agtiisana tabaaraka wa tacaala dadkaasi cuquubay ku leeyihiin cuquubadaasi waxaa ka mid ah qabriga horta waa lagu cadaabi qabriga waxa ku sugaya waa cadaab xadiidkii cabdullaahi bn cabbaas fi saxiixayn nebigu wuxuu soo maray laba qabri buu soo maray markaasaa wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaan labadan qabri dadka ku jira waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani fii kabiir waxa loo cadaabayana wax weyn oo ka tegiddiisa iyo dayntiisu ay cuslayd ma ahayn ma cuslayn inay iska daayaan balaa innahu kabiir
laakiin dembi weyn buu ahaa gelitaankiisu waa fududaa inay iska daayaanna waa fududayd laakiin dembi ahaan waa wan yahay buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh labadan qabri dadka ku jira saasay u cadaaban yihin ama axaduhumaa fakaana laa yastanzihu min albowl midkood labadan ruuxeed cadaab meesha ku cadaaban midkood kaadida muusan iska daahirin jirin kaadida jidhkiisa iyo dharkiisa muusan ka daahirin jirin soomaydaan arag dad islaamnimo sheeganaya oo intay kaleedhiyaan oo kaajaan ayagoon iska dhaqin oon iska nadiifin oo jidhkooda ka dhowrin iska dhaqaaqa qaar badan sidii laysaga daahirin lahaa kaadidoo laysaga ilaalin lahaa taxadarkeedii ma qaadanayaan qabrigay ku cadaaban yihiin wa ama alaakharu fakaana yamshi binnamiima buu nabi sal lla alay slam kan labaadee meesha ku cadaaban wuxuu u cadaaban yahay wuxuu u socon jiroo ka shaqayn jiray inuu dadka isku diro oo warka u kala gudbiyo marka horta qabriga waa lagugu cadaabi haddaad tahay dadka warka kala gudbiye ee isku dira dadka qabriga cadaab baa kugu sugaya qiyaamada soo maaha nebigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidu xudayfa fi saxiixayn laa yadkhulu ljannata qattaatun jannada ma gelayo ruuxa dadka isku diree warka kala gudbiya jannada geli maayo marka qabrigana cadaab baad ku geli aakhare markaad tagtana cadaab baad geli waxaa intaasoo dhan kaaga daran acmaashaadii aad samaysatay dadkii aad xamatay iyo dadkaad isku dirtay ayaa acmaashaadiina loo qaybin doonaa dadkaas aad wax yeeshay ama afkaaga ama addinkaaga dadkaad wax u geysatood dhibaatada u geysatay soonkaagii iyo salaadaadii iyo xajkaagii iyo sadaqadaadii ayay aakhare u fadhiyaan ooy qaadan doonaan nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam atadruuna ma almuflis ma taqaanaan ruuxa caydha ah markaasaa waxay yidhahdeen nebi allow caydh waxaan u naqaanaa annaga man laa dirhama lahu walaa diinaar ruuxaan shilin haysanin oon dirham haysanin oon diinaar haysanin xoolo aan lahayn baan annaga u naqaanaa caydh markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam almuflisu min ummatii ummaddayda ruuxa caydhaa waxa weeye waa ruux imaan doona aakharo wuxuu la imaan doonaa acmaal salaad soon sadaqo acmaal waaweyn buu la imaan doonaa markaasaa markuu acmaasha la yimaado ayaa waxaa imaan doona dad badanoo uu xantay qaar uu gacantiisu gaadhay dad uu dhibaato u geystay dad uu qadfay dadkii baa meesha soo istaagaya maxkamadda rabbi buu saaran yahay markaasay leeyiin rabbiyow ruuxan xaqannagii naga sii waxaa loo qaybinayaa acmaashiisii marka salaaddii qaar baa la siin sakadii qaar baa la siin sadaqadiisii qaar baa la siin soonkii qaar baa la siin markii la qaybiyo xuquuqdoodii la siiyo qaar baa weli soo hadhay oo waxoodii aan la siinin camalkiisiina waa dhammaaday markaasay leeyihin rabbiyow xaqannagii ilaahayna waa caadil tabaaraka wa tacaala maxaa la samaynaa marka dembigii ay galeen dadkani oo dhibaatada u geystay xantay ee dhibka uu geystay ee uu gacantiisu gaadhay dembigoodii inta laga soo qaadaa dusha laga saaraya markaasaa naarta loo kaxaynayaa haway marka waxaad shaqaysatay dad baad u shaqaysay saas daraaddeed baa waxay dhihi jireen culimmada salafka qaar ka mida waxay dhihi jireen marka la yidhahdo hebel baa wax kaa sheego waa lagu xantay oo hebel baa ku xamanaya wax kaa sheegaya oo ku caayaya marka la yidhaahdo wuxuu dhihi jiray oo maanaaba heli karaba camal aanan shaqaysanin in la ii shaqeeyo oo la isiiyo waxaan heli karaba ma aha sidaas daraaddeed aakharana waad sidaa waxaa xigta markaad warka kala qaaddood kala gudbiso dadka aad warka u kala gudbisay wixii dhib ee kala gaadhana adaa dembiga iska leh hadday islaayaan adaa dembiga leh hadday isnacaan adaa dembiga leh hadday isdakhraan adaa dembiga leh hadday isxantaan adaa dembiga leh haa marmarka qaarkood waxaa dhacaysa guryaha ku dumaya oo gurigii baa loo kala warqaadaya ninkii xaaskiisii baa loo kala warqaadaya
labadii la isla qabay baan warka loo kala gudbinayaa war aan jirin ama jiraa loo kala gudbinayaa guryihii baa dumaya shaqo shaydaan waay waxaasoo dhan adaa xambaarsanaya kelimo yar oo gaaban oo laga yaabo si fudud inay kaaga baxday baa dhici karaysa inay ka dhalato dunuub aad u waaweyn oo guryo ku dumaan oo dad isku laayaan oo ummadi ku fasaado oo dhiig ku daato waxaasoo dhan yaa xambaaraya ruuxii warka gudbiyey marka xanta iyo isku dirka iyo warka la kala qaadayo iyo carabkan aan kontaroolka lahayn walaalayaal waa waxyaalaha cadaab inoogu sababaya adduunkeennana fasaad iyo dhib iyo cuquubo rabbi inoo soo jiidi doono carabkaaga ilaasho oo dantaada garo oo dadka ceebahooda ha raacraacin oo haddaad aragto xataa u ceeb astur ruux muslim oo walaalkaa ah xataa hadday si aadan ku talagelin ceebtiisa aad u daalacato kuugu soo baxdo ceebtiisa astur oo qari ilaahay baa ceebtaada asturi tabaaraka wa tacaala haddii aadan ogaaninna haba raadsanin haddaad maqashana difaac oo ha u qoslin hana dhegaysanin hana u marxabaynin ruux walaalkaa oo hilibkiisi la cunayo ama ruux walaalkaa oo la dhaleecaynayo ha dhegaysanin hana u marxabaynine ka celi kan samaynayana danbaa ugu jirta inaad ka celiso walaalkaaga la xamanaya la dhaawacayana danbaa ku jirta inaad ka celiso adigana danbaa kuugu jirto ilaahay baa ku difaaci tabaaraka wa tacaala meel aad jeceshahay in lagu difaaco ayuu ku difaaci haddaad difaaci weydana meel sidaasoo kale abaa adigana lagugu difaacaaga laga tegi doonaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala garabkaaga ka bixi doonaa ilaahay tabaaraka wa tacaala walaalayaal carabkeenna iyo afkeenna iyo adinkeedana allah inoo xifdiyo ee ha lays ilaaliyo khaasatan haddaad dumar tihiin shaqada waayahan aad u badatay oo guryuhu ku dumeen oo mujtamaceennu ku fasaaday oo dhibaatooyin badan ka dhalanayaani waa carabka iyo waxyaalaha ka dhalanaya iyo xanta iyo warka la kala gudbinayo ilaahay ha laga yaabo tabaaraka wa tacaala oo waxyaabaha la iska ilaaliyo allah tabaaraka wa tacaala hana waafajiyo wixii khayr ah wixii xumaanana ilaahay naga sarfiyo hada wabillahi tawfiiq